iyada oo lagu guda jiro xilli xagaa ah oo aad u kulul magaalada Berbera ayaa labadii cisho u dambeeyay waxaa dhacday in qaybo ka mid ah magaalada Berbera ay biyuhu ka yaraadaan iyadoo waliba xilligii mooshinka xoolaha ugu badan Berbera ka dhoofiyeen ay socdaan marayaha wakaalada biyaha ee magaalada Berbera injineer Keyd Cabdullaahi Xandule oo saaka saxaafadda la hadlayay ayaa ku sababeeyay biyo yaraantaasi in uu isxidhay beebka ugu weyn ee biyaha keenay magaalada Berbera kaasi oo ka yimaada goob u jirta 10 kiiloomitir oo la yiraahdo Dubaar goobtaasi oo saaka shaqaalaha kala duwan ee wakaaladaasi ay gacanta saareen beebabkaasi iyagoo oo ka soo guriyay waxa loo yaqaan shacaabiga adoo maarayaha wakaalada biyaha ee magaalada Berbera oo arrimahaasi ka hadlaya waxa kamid ah hadaladiisii alxamdulillaah rabbil caalamiin salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin maanta waxa aan isugu kin yaray ee aan halka kan aanu joogno aan damcayn aan uga hadlo halkan aanu joogno waa Dubaar waa goob ka mid ah goobaha biyuhu ka yimaadaan magaalada Berbera uga yimaadaan goobta ugu qadiimisan ama ugu taariikhda fog leh biyaha waxa ka yimaada biyaha magaalada boqolkiiba 40 in lagu qiyaaso ayaa ka yimaada halka kan goobta tan muddo dheerna way soo taxnay taariikhdu run ahaantii waqtigan aynu joogno waa waqti xagaaya waa waqti aad u kulul waxaynu ku jirnaa mooshin ka xoolaha carafadu dhoofaan oo xoolo aad u fara badan ay dhoofayaan run ahaantii waqti kasto mar kasto oo ay waqtigan timaado biyuhu magaalada soo gala waxay suurtageli weyda inay u qaybsamaan dadka iyo xoolaha sababtaas had iyo jeer marka ay waqti kulaylaha ku soo beegantana waxa dhacda in ay yana ka qayb qaadato biyo yaraanta arintaas iyada ahi waxa ay marka dhan la oowdaba dhanka kale ayaa hadana qaawisma ama macnaheedu u baahda taakulo run ahaantii waxaan xagaagan maanta aanu ku jirnay wuxuu xagaaga ay Berbera ugu biyo badnayd goob kasta oo magaalada ka mid ah biyuhu way gaareen goobaha aan lagu cabi jirin baa lagu cabay waqtiga ay imika dareemay xagaaga oo dhan reer Berbera way dareemi jireen sidii caadiga ahayd laakiinse waxaad moodaysaa inay shalayto iyo maanta ay dareemeen xagaagan imika yada intii kaleba ay ku jireen biyo fara badan oo ay helaan qoys waliba halkiisa ku helayay shalay iyo maanta maxaa sida u dareemeen baa loo oran karaa reer Berbera waxa ay u dareemeen run ahaantii had iyo jeer biyuhu waxa biyaha halka ka yimaada ways awdaan oo waxa ka sameysma dhagax shacaabiya ayaa ku sameysma beebka dhexdiisa kaasoo awda had iyo jeer meelaha ilaha biyuhu marayaan sababta awgeed oo ah maanta shaqada halka ka socotay ee arkaysaan ee kor indhiina ku aragtaan waxaan ku tala gashanahay in aan la dareemin biyo la'aan inaanu kordhino mar kasta oo ay soo kordhaan xooluba in aanu kordhino annaguna aanu ila biyo siyaada ah sidaan u heli lahayn ayaanu ku dadaalaynaa marka waxaan dadweynaha reer Berbera ogeysiinaya run ahaantii ama aan u sheegayaa in loo dadaalayo laguna talagalkayaguna yahay inuu qoys waliba halkiisa uu biyo ku helo magaalada Berbera oo ah meesha ugu kulul waa meesha biyaheedu ugu jaban yihiin gobolada kale marka la eego run ahaantii gobol annagu waxaanu ka qaadnaa halka mitir kuyuubig markaanu qoyska aanu qofka aanu saacada u gelino waxaanu ka qaadnaa 6 gobolada kale qaar baa 10 maraya qaar baa 8 maraya iyo 9 maraya run ahaantii annagu waxaanu waliba ku sii tala gashanahay haddii ay noo suurto gasho in ay Berbera helaan biyo fara badan oo ku filan oo jaban inay helaan ayaa ku talagalkaygu yahay waa higsiga dhabta ah waxaan leeyahay reer Berbera u dulqaata inta la muxuu ahaa sheeg hawsha socoto u dulqaata magaalooyinka kale bilaa la waayaa sanadana biyo arag gobolada kale aanay weligood soo dhicin oo qasabadu ugu jirtaa reer Berbera ma dhacdo in ay 2 saacadood isku xiga ay biyo waayaan alxamdulillaah rabbil caalamiin waa nimco ay ilaahay siiyay oo runtii in lagu mahadnaqo loo baahan yahay ma aha maalinta markii quray wax sidaagaan in qayladu cirka marto qodobka labaad ee aan doonayay inaan maanta halka ka iftiimiyo waxa weeyaan ganacsatada xoolaha dhoofisa xooluhu waa noole u baahan
sida qofka bini'aadanka ah biyo ugu baahan yahay u baahan waxaa loo baahan yahay in ay ka qayb qaataan mar kasta horumarinta biyaha maadaama ay isku xidhan tahay waxa ay ka ganacsanayaan iyo biyaha helitaankoodu inay isku xidhan yihiin waxa laga rabaa inay ka qayb qaataan oo ka hawlgalaan oo ay ku tala galaan waxana ay ka ganacsanayaan inuu yahay wax aan biyo la'aan noolaan karahayn taa waxaan leeyahay markaa annagoo aad idinku mahadnaqayna run ahaantii oo aad idinka raalliya waxa gacmo wada jir wax ku gooyaan ka qayb qaata ayaan idin leeyahay oo ka muxuu ahaa ii sheeg haddaan la istaakuleen ama aan adeegga aan laga wada qayb qaadan si isku mid ah waxba uma suurto galaan waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka ka degmada oo run ahaantii iyagu mar kasta ka qayb qaata ama u heegana in ay ka qayb qaataan dhibaatooyinka ka soo wajaha deegaanka hadday biyo tahay hadday caafimaad iyo hadday arrimaha kale ee bulshada ay tahay run ahaantii aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa hawsha tani inay ku soo dhammaato maanta ilaa iyo caawa inay ku soo dhammaato berberina ay helaan biyo ku filan xoolahooduna ay helaan biyo ku filan insha allahu tacaala marka sidaasaan ugu bashaaraynaya reer berbera u dulqaata baan leeyahay inta shaqada hawsha socoto waa laydiin maqan yahay way maraye hadda ciladan jirta aad labada cisho ku tilmaantay ma biyo yaraanba mise waxaad leedahay dhuumihii biyaha ayaa xidhmay kala caddee yaasiin aad baad u mahadsan tahay run ahaantii waa adiga arkay inaan beebka bedelayno beebka waxaa isku taaga sidii hadeerkuba arkayseen xididada dhirta tan hareeraheenna ku taalla ayaa gala dabadeedna ku weynaada oo beebkaba awda waxaa kaloo ka qayb qaata dhagax biyaha la socda had iyo jeer olayaasha shacaabi oo isna awda ayaa jira marka intan ayaa waxaa ka dhacay oodan wax la yidhaahdo oo yacni biyihii ay socon waayeen sida barkadda ku arkayseen barkadda biyuhu ku soo dhacaan biyahoo dhammi halkan ay isugu yimaadaan marka inaanay soconaynin waad aragtaa ama socodkoodu yar yahay waxaan rajaynayaa inay marka intaas dhammaato in ay sidii ay ahaan jireen iyo si la mid ah ay ku socon doonaan qof walbana halkiisa ku gaari doonaan way maaraye muddo 4 bilood aad imika shaqadan gacanta ku haysa waxaad ballan qaaday inaad tadawur iyo isbel degdegaad samayn doonto maxaad dadka u sheegi kartaa ayaad qabatay 4 bilood run ahaantii waa run waxaan shaqada tan la wareegay 15 bishii May ayaan la wareegay maantana waxaanu joognaa August waxaan rajaynayaa inay tahay 2 bilood iyo badh meelaha ayaan rajaynayaa inay tahay labada bilood iyo badhka waxa aan qabtay xaafado kamid ah magaalada ayaan biyaha oo aan biyo lahayn ayaan biyaha gaarsiiyay dhur ilaa iyo 2 kiiloomitir iyo badh ayaan biyaha gaarsiiyay qaybihii kale ee magaalada ka muxuu ahaa aan biyo gaarina iyana gacanta ayaa imika lagu hayaa waxa iga soo hoos galay run ahaantii iyana waa dhamayn lahaa waxa iga soo hoos galay waqtiga kan la yiraahdo mooshinka xajka oo ah hawl had iyo habeen loo taagan yahay oo aan wax kale la awoodi karayn in iyaga uu la gaarsiiyo mooyaane aad ma santahay